daawadayaal waxaan ahay Suxaab Axmed waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee telefishinka VOS codka Soomaalida oo si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho oo leeyahay telefishinka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kormeer waxa uu ku tagay xarunta gurmadka degdega ah xanuunka COVID-19. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa kormeer waxa ay ku tageen xarunta gurmadka degdega ah ee xanuunka safmarka COVID-19 iyo wicitaanka lambarka gaaban oo ku dhex taala isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa kormeer kala duwan ku sameeyay qeybaha kala duwan gurmadka degdega ah halkaas oo ay ku sugnaayeen howlwadeenada xaruntaasi. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa bogaadiyay shaqada nafhurnimada leh ee ay dalkooda u hayaan dhalinyarada heeganka ku ahaa xaruntaasi waxa uu ku bogaadiyay in hawsha muhiimka ay hayaan ay si laba jibaaraan. Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in xanuunka safmarka COVID-19 dalkeena uu dhibaato badan ku hayo. Inaan soo booqdo xarunta koolasha ee loogu talagalay COVID-19 waxa aad ii dhiirigeliyay qalbigayga ay taabatay markaan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed oo heegan ugu jiro iyagoon waxba ka helin waxna ka qaadan dawladda in ay u soo gurmadaan shacabkooda ayna ka jawaabaan wicitaanada ka imaanaya dadka dareemaya bukaanada COVID-19. dhalinyarada Soomaaliyeed oo isugu jiro gabdho iyo wiilal aad ayay u mahadsan yihiin sida hufnaanta daacadnimada ah daljaceelka muwaadinimada ay u gutaan howlahooda 24 saacba. sida hore la igu sheegay waxay qaban jireen maalintii wicitaano kor u dhaafay ilaa 10,000 laakiin hadda uu soo yaraaday gaar ahaan magaalada Muqdisho laakiin goboladii ay ku korodhay. marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed aan raba halkan inaan uga sheego siiba shacabka deegaanada gobolada inay aad u taxadaraan afka dabooshaan gacmaha iska dhaqaan kala fogaadaan qofkii dareemo in uu qabo cudurka ama uu shaki galo in uu soo waco call centerka ama xarunta wicitaanka dhexe si loogu sheego waxa uu dareemayo waxa ay yihiin. fadlan soo waca walaalihiin dadka idinka qabanaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed diyaar u ah inay idin saacidaan. soo waca u sheega xanuunkiina inta aadan faafin oo aad u gudbin bulshada inteeda kale. waxa kale oo iyadana jirto qayb labaad oo ku dhagan oo ah badbaadi naftaada. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka qayb qaata oo u hura dhaqaalihiina nasiiba ganacsatada dadka shaqeeya iyo qof kasta oo muwaadin ah sidii uu gacan u siin lahaa muwaadinka Soomaaliyeed ee aan awood u lahayn inuu badbaadiyo nafsadiisa. marka saa darteed waxaan idinka codsanayaa badbaadi naftaada oo ugu baahan dad masaakiin ah. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa waxa uu kormeer ku tagay deegaan ay dhawaan ay al-shabaab kala wareegeen ciidamada dawladda iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa shalay waxa uu kormeer ku tagay galinkii dambe furmaha dagaalka gaar ahaan deegaan dhawaan ay al-shabaab kala wareegeen ciidamada dawladda federaalka deegaanka oo hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug. madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa saraakiisha hogaaminaya howlgalkii al-shabaab maalmo ka hor lagala wareegay deegaanadii uu tagay ku bogaadiyay howlaha ay fuliyeen isagoo ciidanka faray inay sii wadaan howlgalka ka dhanka al-shabaab. isagoo warbaahinta la hadlayay madaxweynaha Galmudug waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin xoojinta iyo garab istaaga ciidamada xoogga dalka qaybta 12aad iyo kuwa maamulkiisa isla markaana ay ku taageerayaan howlgallada socda. sidoo kale madaxweyne Qoorqoor ayaa tilmaamay in ay iyaguna ay diyaar u yihiin in ay ka garab siiyaan ciidamada howlaha dhinaca maamulka kaga aadan ee fududeynta howlgalladan. maantay waxaan idinkugu nimid inaan idinku bogaadino idinkugu hambalyeeyno idinla qaybsanno dagaalka xaqa ah ee kula jirtaan cadawga argagixisada ah. annagoo si gaar ah runtii idinkugu bogaadinayna maalmihii la soo dhaafay talaabta
lama ilaawaanka aad ka qaadeen argagixisada argagixisadu galmudug waa soo daandaansadeen waana insha Allah way naga shalaayaan waxaan leenahay ciidankaas geesiyaasha ah xaq u dirirka ah diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda ka difaacaya argagixisada aan waxba reebayn inta dhimanna waa cirib tiraynaa waana ka xoreynaynaa galmudug guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanada ay hadda soo aadeen oo ay dadka shacabka ah oo reer guuraaga ah oo xoolo dhaqatada ah ay ku dhibayaan oo xoolahoodana boobka ku cunayaan deegaankay degan yihiinna ay xoogga oo kacinayaan waxay naga tahay annagoon u kala harin argagixisada inaan si waafiya gacanta u saarno insha Allah aad baa u mahadsantihiin sidaad nafta ugu hurteen sidaad dadkiina iyo diintiina dalkiina ugu difaacdeen cadowga halkan cashar waa laga sii jiray galmudug argagixisada casharna waa laga siinaya waa laga sii way imaan jireen wayna tagi jireen iyagoo dulmigoodii ka soo baxay iyagoo diin la'aantoodii ka soo baxday ayagoo doqonnimadooda ka soo baxday haddana way naga tegayaan ayagoo intii hore ka sii liita insha Allah anagoo wada jirnaan ku dhiiranaynaa anagoo wada jirnaan gacanta saaraynaa anagoo wada jirnaan ilaahay ka baryaynaa inay wax ka yimid khawaarijta nagu dhacaan annaga cabsi kama qabno xabadaha la ku dhifanayaa iyo khawaarijta maaragtay daday meel u dhigeen iyo daday maaragtay meel u geliyeen dhagar u geliyeen kama qabno cabsi waa naqaan dhagartooda iyo khiyaanadooda xun oo raqiiska ah oo ay ku banaysteen nafta iyo maalka iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed muslimiinta ah waa ku dhaqaaqaynaa waana ku dhaqaaqdeen talaabna waa ka qaadeen inta dhimanna waa dhamaystiraynaa innaguna dawladda galmudug anaa ugu sarreeya waan raacaya dilayra insha Allah annagu deegaano iyo maamullo kalaan difaacuna oo aan ka hor taagannahay argagixisada ma ahan galmudug kaliya maamullaan ka hor taagannahay aan hubno inaan haddayna hor taagnayn ay dhagartooda dhaqso gaarsiin lahaayeen annagaa ka hor taagan annagaa ka difaacayna cidna xitaa ugama rabno wax gaar ah oo dad Soomaaliyeed waa deegaan Soomaaliyeed oo inaan difaacno oo xoreyno xaq noogu leh kartida iyo geesinimada iyo howlkarnimada reer galmudug iyo gaar ahaan Soomaaliyeed waa ku wajahaynaa waana waadkaynaa insha Allah Puntland waxay ku hanjabtay in Somaliland ay kala wareegi doonaan deegaano dhowr ah oo imikan ay ka harimiyaan Somaliland maamulka Puntland ayaa sheegay inay gacanta ku soo celin doonaan magaalada Laascaanood oo ka tirsan gobolka Sool iyo magaalada Cerigabo oo ka tirsan gobolka Sanaag kuwaas oo si buuxda ay uga harimiyaan xukuumadda Somaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo su'aalo lagu weydiinayay barta Club House ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorshihii ugu dambeeyay ee ay kula wareegayaan magaalooyinkaasi gobolka Sanaag si dhameystiran ayuu ugu jiraa gacanta Puntland marka laga reebo degmada Cerigabona hawsheeda way socotaa oo waa ay dhamaanaysaa sidoo kale Laascaanoodna iyada oo aan hawl badan laga marin ayay dhamaanaysaa oo waa ay socotaa ayuu yiri wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo sheegay in si buuxda deegaano ay kaga harimiyaan Somaliland ay la wareegi doonaan maalmaha soo socda halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka VOA socodka Soomaalida waxa uu si toos ah kaga imaanaya warkan Muqdisho boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa iska fogeysay inay ku lug leedahay afgambigii dhicisoobay ee boqortooyada Urdun lala damacsanaa saraakiisha dalka Sacuudiga ayaa gabi ahaan bagaashaanka u daruuray wararka sheegaya in ay door ku leeyihiin isku dayga afgambi ee dhicisoobay ee la sheegay in uu ka dhanaha boqortooyada Urdun sabtidii dhaxal sugii hore ee Urdun Hamza ayaa xabsi guri la dhigay waxaana lagu eedeeyay in uu majaxabaabinayay amniga qaranka dalkaasi arintan ayaa timid kadib markii uu Hamza ka qayb galay
kulan ay lahaayeen mid ka mid ah beelaha dega Urdun kaasi oo si cad loogu cambaareeyay boqorka dalkaasi boqor Cabdalla. Xamza ayaa kadib soo saaray laba muuqaal oo BBC-da la wadaagay isaga oo dowladda dalkiisa ku eedeeyay musuqmaasuq iyo waxqabad la'aan. Waxaa muuqaaladaasi uu ku sheegay in dadka ay ka baqayaan in arrintan ay ka hadlaan iyaga oo ka baqanaya in ay dhibaateeyaan ciidamada ammaanka. Tan iyo wixii ka dambeeyay muuqaalka uu soo saaray xaaladda dalkaasi ayaa waxaa la dejiyay dhaxal sugihii hore ee dalkaasi guri gaar ah oo ay boqortooyadu way amartay inuusan samayn karin wax dhaqdhaqaaqa. warkii aad ka daawanayseen ee duhurnimo telefishinka VOS codka Soomaalida daawadayaasha qiimaha badan waa inaga inta aad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa xigeentii dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.